siyaasadda Soomaaliya oo maalmihii u dambeysay ahayd mid aad u degan ayaa haatan la sheegayaa in abaabulo waaweyn uu ka socdo xafiisyada filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Madhaba in khilaaf xoog leh uu soo kala dhaxgalay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Maxaa soo ifbixiyay khilaafka haatan labada dhinac? Madhaba in khilaafka uu keenay hadal soo jeedintii midowga murashaxiinta ee ahaa in xilka laga qaado taliyayaasha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odawaah Yuusuf Raage, maadaama ay ku eedeeyeen inay mas'uul ka ahaayeen weeraradii lagu qaaday banaanbaxyadii ay horkacayeen midowga murashaxiinta. Maxaa ka jira wararka sheegaya in ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu Farmaajo la wadaagay inuu qorsheynayo in xilka qaadis uu ku sameeyo taliyayaasha ciidamada kuwooda lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho? Muxuu kaga jawaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo jeedinta hadalka ra'iisul wasaaraha? Maxaqiiq baa in labada dhinac ay shir saacado badan qaatay balse la isku fahmi waayay. Sidee bay u arkaan midowga murashaxiinta arrinta haatan ka soo cusboonaatay siyaasadda Soomaaliya? Maxaase u qorsheysan midowga murashaxiinta in haddii ra'iisul wasaaruhu uu ku guuldareysto xilka qaadista taliyaha NISA iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka, shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo walwal ka muujiyay khilaafka haatan soo cusboonaaday? Haddaba intaa iyo in ka badan waxaad ku daawan doontaa muuqaalkani soo socda. Haddii aad daawada nagu cusub tahay, fadlan follow iyo like inoo saar page-ka aan ku leenahay Facebook-ga. Saaxiibadaana u sii share garee si aan u helno saaxiibo adigoo kale ah oo aad u wanaagsan. Waan ku faraxsanahay in saaxiib adigoo kale ah aan halkan ku yeesho. Dhanka YouTube-kana subscribe inoo saar si aad u noqoto saaxiibada ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan halkan soo dhigno. Wararka laga helayo filla Soomaaliya ayaa sheegaya in khilaaf xoog leh uu soo kala dhaxgalay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Khilaafka ayaa yimid kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la wadaagay inuu doonayo in uu xilka ka qaado taliyayaasha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odawaah Yuusuf Raage. Intaa kadib madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintaasi u cuntami weysay, asagoona ra'iisul wasaaraha u sheegay inuusan xilka ka qaadi karin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, milkiilaha dowladda Soomaaliya, iyo Odawaah Yuusuf Raage oo la sheegay inay ka mid ahaayeen raggii loo adeegsaday weeraradii lagu qaaday midowga murashaxiinta. Intaa kadib saaxiibo ka kala socday labada dhinac ayaa isku dayay in arrinta la isku hayo ay xaliyaan, xaaladana ay qaboojiyaan, balse ay ku guuldareysteen iyadoo markii dambe la sheegay in shirka lagu kala tegay. Khilaafka ayaa la sheegay in berihii dhoweyd uu jiray balse saxaafadda aysan ogaanin, laakiin siyaasiyiin ka agdhow labada dhinac ee filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in khilaafka uu soo kala dhaxgalay Farmaajo iyo Rooble ay sababteeda lahayd kadib markii ay isku soo dhawaadeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga murashaxiinta. Taasina ay keentay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kalsoonida u qabay ra'iisul wasaaruhu ay lunto. Ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ka baaraandegayo inuu shir la qaato midowga murashaxiinta si uu u noqdo mid ka duwan kulamadii hore, meeshana looga saaro shuruudaha fashilin kara shirkan oo saldhig u ah doorashooyinka dalka. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in Rooble uu haatan ka fikirayo sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha fashilin kara wadahadallada doorashooyinka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa la wareegay amniga iyo maamulka doorashada, isagoona kadib bilaabay abaabul xooggan oo ku wajahayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa imaanaysa kadib markii mucaaradka ay Maxamed Xuseen Rooble u sheegeen in uu xilka ka qaado taliyaha NISA iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka. Ma cadda sababta haatan keentay in ra'iisul wasaaruhu uu ku dhiirado in Farmaajo uu ka hor yimaado, balse dadka u dhunduleela siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in Rooble uu doonayo inuu fuliyo balantii uu ka qaaday midowga murashaxiinta oo ahayd inuu si cadaalad ah u qabto hannaanka doorashada dalka.